صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد كان يبكي بدون صوت كما يبكي. shir ballaaran oo ay isugu yimaadeen culimada ahlusunna waljamaaca ayaa shalay si rasmi ah uga dhacay xirada qaxood iyadoo ay kasoo qayb galeen culimo waaweyn oo ka kala yimid dhammaan degmooyinka ismaamulka Gaarisa oo ay ka mid yihiin Faafi, Lagdheera, Liboy, Gaarisa, magaalo madaxda iyo deegaanada ku hareeraysan xeryaha qaxootiga ah ee Dadaab. shirkan oo ahaa mid diimeed iyo bulsho isugu jiro ayaa diradda lagu saaray sidii culimada ay u mideen lahaayeen dadaalkooda si ay u xoojiyaan faafinta diinta islaamka iyagoo shacabka ku baraya akhlaaqda suuban, nabadda iyo midnimada ummadda. waxay culimada muujiyeen go'aan adag oo ah inay waqti, awood iyo maskax isugu geynayaan sidii ay u noqon lahaayeen hoggaan diimeed dhab ah dadkana ugu yeera. waxaa la yidhahdaa jamciyatul hudaa alkhayriya waa dhalinyaro culimo ah oo deegaanka u dhalatay waxayna isku aas-aastay inay diinka dhulka yaalla ay kor u qaado maadaama gaaladii iyo dadka waddankan jooga intooda badan ay u istaageen in dunuwii kor loo qaado. annagana waxaan u midownay inaan diinka islaamka aan kor u qaadno asagoo maca silmin oo nabadgelyo oo diinka xaqiiqadaha ah. waxaan u kulannay marka inaan deegaanka inta awooddaanada ah ka tuulo ka deegaan ahaan ka xaafad ahaan ka qaws ahaan inaan diinta islaamka si daacad aan u gaarsiino annagoon wax ajri ku qaadanaynin mushaarna meel kale aan kaga soo qaadanayn oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaga rajaynayna inuu ilaahay naga abaaliyo subxaanahu wa ta'ala. insha allahu ta'ala culimada maanta meeshan ku shirtay iskugu imaatay ee deegaanka countiga Gaarisa ka wada imaatay ee ku kulantay degmada Dadaab maanta shirki meeshan ay ku gashay waxyaabo muhiim ah ay culimadu iska wareysteen oo ka soo baxay shirka asaga. ka koobaad oo culimada ay isku waafaqday waa in deegaanka iyo bulshada aan ku dhex nool culimadu daaciyiinta ay ku dhex nool yihiin ay diinka ku faafiyaan si rasmi ayagoo cadaalad iyo dad isku soo dhaweyn iyo in diinka loo daacad noqdo ku shaqeynaya. sidoo kale culimada waxay ugu baaqeen madaxda deegaanka odayaasha dhaqanka inay si buuxda u garab istaagaan dadaalada diinta lagu kobcinayo kana fogaadaan kala qaybsanaanta si loo helo bulsho midaysan oo ku dhaqan u hoggaansanto quraanka kariimka iyo sunnada rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. waxay culimadu codsadeen oo ka codsadeen dadka deegaanka ka ah madaxda iyo odayaasha nabigeena calayhi salaatu wasalaam yaa maalinkii uu dagaalkii Badr oo kubra uu dhacay yaa wuxuu u yeeray saxaabadii markaas meesha la joogtay oo muhaajiriin iyo ansaar ka koobnay markaas uu laba nin buu istaajiyay wuxuu yiri bal taliya oo maanta inaan duulaan rabaa ila taliya. marka mid ka mid ah wuxuu ku hadlay saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo Sa'd al-Jaysh wuxuu yiri rasuulka ilaahay waan ku rumaynay xaq baan ku rumaynay wax alla waxa adiga noogu taleysana shaki ka galimayna waa raacay. saxaabi kale too leeyahay Muqtaad ibn Amr asna wuxuu yiri rasuulka ilaahay waan ku rumaynay waxa aad sheegaysana waa xaq mana ku dhahayna sidii yaani reer bani Israa'iil ay nabigooda Ciise ay ku dhaheen oo ay dhaheen faqatila idhab anta nabiyullaahi Muuse faqatil idhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun kuma dhahayno ee waxaan dhahaynaa fadhhabtak anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma qatilun dhaqaaq oo ilaahay adigaba soo dagaalama annagana miciinaan ka dagaalamayna wax alla waxaadna amraysana kama dhumarayno yani haddii aadna dhahdaan badda galana waan wada gelayna halkaasaan ku qarqoomayna kamana istaagayno. waxaan ka codsanaynaa madaxda deegaanka iyo odayaashaba maadaama odayaashaanada ay yihiin madaxdaanada ay yihiin diinkan u dhaqaaqnay inaan dadka jahliga ka saarnay inaad macaa naga dhaqaaqdaan oo taageertaan baan inaga codsanaynaa. arrinta ugu muhiimsan oo shirka ka soo baxday waa labada qodob insha allahu tacaala intaasaan rabnaa inaan dardaaranka guud aan u cilaabino bulshada. dhinaca kale culimada ayaa si qiiro leh waxay uga hadleen xaaladda adag ee ay wajahayaan qaxootiga ku sugan xeryaha Dadaab gaar ahaan hoos u dhaca weyn ee ku yimid raashinkii ay heli jireen oo horeyba u ahaa mid kooban. waxay sheegeen in bulshadaasi hadda ay la daalaadhacayaan nolol adag ayna dareemayaan dayacaad ka timid hay-adaha samafalka iyo dowladda Kenya. culimadan waxay dowladda iyo hay-adaha gargaarka si kulul ugu baaqeen inay si degdeg
degdeg ah uga jawaabaan baahida taagan islamarkaana ay gacan qabtaan dadka dhibaataysan kuwaasoo ay sheegeen inaysan heli karin wax noloshooda ku filan. culimadii deegaanka waxyaabaha bulshada taabanaya si rasmi inaan u taabano annaga laftaanada oo wax mas'uuliyad ay naga saaranto diintu ay na amrayso. waxaa jira dad qaxooti ah oo degan deegaanka oo dawladda Kenya ay ku marti qaatay dalkeeda inay ku ilaaliso oo nafaqadoodii iyo biyahoodii iyo caafimaadkoodaba ay ku tala gashay inay qaadasho. tii iyada waxa ka soo noqotay caqabad aad u fara badan ayadoo aan ognahay caqabadaha jira inay kor ka socdaan oo dawladda xitaa ay ka sareeyaan laakiin waxaan leenahay oo ma dul qaadan karno bulshada annaga deegaanka annaga ku nool ee annagu aan arkayna dhibaatada ay qabto oo biyo la'aan oo hadda biyihii oo dhan laga jar wax raashin oo la siiyana aysan jirin wax juquulo oo hadda kor la siin jiro haddana eegna laga jaro ayadana aan la siinin dadkii inay xoolo dad loo tabcayna aan ahayn oo hay'adihii iyo dawladduba dadkan ay dad ay xoolo u tabcay aysan ahayn inay dadkii gacantooda dhulka ay ku wada dhacaan oo meelaha qaarkood markaad aragtaad arkaysaa leeman dheer oo jirkaamo iyo garjamo la dhigay oo biyo lagu horsanayo booyd loo dhaaminayo iyo kuwa xalay baryaan oo fayl dartii xalay u baryaan oon iyo dhibaato darteed arrinta iyo qof dhintay oo wax lagu dhaqay la waayay biyo la'aan darteed arrinta waxaan codsanaynaa oon dawladda ka codsanaynaa oo waliba madaxda khaasatan aan ka codsanaynaa inay arrinta il gooniyo u yeeshaan xagga daawadiba ayadana laga sheeganayo maxaa yeelay dadkii xanuuno fara badan baa hadda jira oo deegaanka jira maxaa yeelay bulsho fara badan oo meelo kala duwan ka soo qaxday oo gaal iyo muslimaba anaga deegaankan lagu soo wada xiray bulshada iyada xanuun bay la wada dhamaanayaan xanuunka asaga ah caafimaadkii iyo isbitaaladii baa daawadii laga wada jiray waxaan codsanaynaa haddaan nahay culimadii arrinta aad bay noo darin gelinaysaa aad baana maaragtay yaan ugu dhibaataysannahay annagoo murugtaa la qaybsanayna dadka masaakiinta inta meesha lagu soo xareeyay haddana dhibaataysan waxaanu ka codsanaynaa madaxda awalan waxaanu ka codsanaynaa wixii ka sarreeya oo dawladda ah haddii uu yahay caafimaad iyo haddii uu yahay taakuladii kaleete ee dadkan meesha lagu soo xareeyay la siin jirayba inay hay'adaha khuseeya ay ku khasbaan maadaama dadkan ayagu ay ballan qaadeen inay inta ku haynayaan inay ku soo cadaadiyaan inay biyahooda u soo celiyaan raashinkooda ay u soo celiyaan daawadooda ay u soo celiyaan ay wixii ay kala shaqayn jireen oo caafimaad ay kala shaqeeyaan intaasaan markayaan annagoo culimo ah yaanu codsanaynaa inay dawladda ay u dhaqaaqdo oon la fiirsanin dadka meesha ku dhibaataysan. shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay jiraan walaacyo isa soo taraya oo la xiriira adeegyada aasaasiga ah ee xoryaha qaxootiga ah ee Dadaab.